عليكم ورحمة الله وبركاته. هلك waxaan naga hadlayaa anigoo cali habar sama ahna maanta magaranaysaa dadka midga kamid ah ama midga maalka ah. Haddaba halkan maanta waxaan ka hadlayaa magaca midgaanka ah dibta u noo geystay iyo maanta magaranaysaa sida xaqdarrada ah ee maanta dibtaasi ay u dhacday لأنه مجيء متجان هتوحي هاي ودب لأنه قلت ما تو وان كجميل هين لكن مجيء متجان كأون حمين دبتو نجو هي أنا ما أنت أي ويناتي أيا ما أنت مقرن سا إلا إمكان ما أنت أقاد تقاد الله هاي هذا ما أنت مجيء سان هرب أشجني ومتجان ومتجمال ومرقمال وشقيسته وحوجي شقيسته وفرسمي شقيسته ومتجمال مرك الله بدينا ومتجو ما أنت بحمار ده مجرو دبت ونوجيستينا ما أنت مقرن سا وأن أقاد الله هنا وفربنا تاي مرك ما أنت وحن كهذ ليها مجعاسي حما سيدان أولهين iyo dhibaatadu noo geystay inta ay la egtahay inuu dadku nala ogaado maanta dhibaatada uu noo geystay maanta magaca midgaanka iyo maanta noo geystay oo farabadan inaan halka kaga hadlo oo maanta bal aan wax ka sheego si loo ogaado magacaasi ceeb aanu lahayn oo lagu saaray dadkii sheeganayay dhibtu u geystay markaasi taasi waxaan uga magac baan ugu bixino waxaan niri dhacdooyinkii dhiilada lahaa ee ku dhacay midgaha dhiilo waa dhibaatada waxay la dhigtahay dhacdooyinkii dhibaatada lahaa ee ku dhacay dadka midgamaalka ah haddaba bal nala eega oo maanta wixii dhacaaba maanta waa in laga hadlo oo maanta la ogaado laana waxa finka uurka ku jira carabka daweeya maanta nin kastoo midgaani maanta arrimaha aan ka hadlayo wuu og yahay wuu ka calxun yahay laakiin markaan maanta ka hadalay ee maanta ma garanaysaa Soomaaliyeed la ogaato te maanta waan ka nafisaynaa oo maanta wax dhacay dib dambaysana waa la nooga digtooraanayaa wax la mid ah lagu hadli maayo haddaba taa waxa ugu horeeya dhacdooyinkaas maanta sheekada la baxday waa midgaano magmale waa tumaalo tagmale waxa jiraysay kontonadii ilaa intii ka horeysay ilaa lixdanadii ma soo gaadhay iyada oo rabadaan markuu soo galayo asarka imika aan joogno kale rabadaan sidoo u soo galayo markuu soo galayo maanta waxa caruur magaalada joogta ay dhagaxyo guran jireen oo naagaha dhilooyinka xaafadooda tagayeen oy oran jireen waa midgaano magmale waa tumaalo tagmale xaafada dhilooyinka ay shid ku garaaci jireen markay ka soo noqdaan dhagxaan kale soo guran jireen xaafada midgahay soo gali jireen haday urayso tahay haday daami tahay haday secretary kale tahayba haddana halkaas maanta ma garanaysaa dhagaxii markay waa tumaalo tagmale waa midgaano magmale oo gowda laga saaray ayaan daradan ugu dhacay taasi keentay waxay ahayd waad ogtihiin oo maanta waxa la yiri markuu rabadaan saawo kale soo galay shadaadinta waa la xidhaa oo shadaadinta waa la xidhaa shadaadintii baan ka mid noqonay markay caawo kale rabadaan soo galay waa ka dhagaxa la dhacayeen arkab markii dambe waan ogaano caawo kale markay rabadaan saa u soo galayso asarkii baan aqliyada xidhi jiray xaafado kale tagi jiray markaas aqladii mareen la shiidi jiray waa dhacdooyin dhacday oo dhab oo xaqiiqo ah maalin baa jirtay maanta shiidkiin ku dhaawacmay wuu arkayay yarkii soo tuuray isagoo ordayo yarkii soo eriyaday rag waaweyn oo daawanayay shiidka sida loo shiiday dadkaasi ayuu soo dhex galay wuu ka soo dabagalay isagoo dhigu ka daayo kii ugu horeeya qabtay wararka waxay edib bila edib baatay yarka iska daayo dib u noqo halkuu ka oran lahaa war iska raay lahaa iyo waa caruur iyo waa kan samxuu oran inta ugu hore wuu daawanayay taasi waa wax dhacay oo maanta ma garanaysaa wixii aniga ila daa'iyo wixii ka weyniba ay goobjoog u ahayd waa maanta ma garanaysaa waa midgaan waa magmale waa tumaalo tagmale waxa ku xigtay oo maanta iyaduna jirta maanta ma garanaysaa magaalada Burco la yiraahdo xaafad baan ku leenahay xaafada uraysa la yiraahdaa arooska markaan dhiganayno doorkii bay naagaha iyo aroosadee waxaasi ka iman jireen maxaan ku idhaa urayso waxay iman jireen magaalada Burco
casarkii kolkay tahay ayay maanta labisan jireen oo iyagoo labistay oo maanta ma garanaysaa dahab iyo dhar iyo wixii ay haystaan iyo waxay soo amahdaanba ku labistay bay halkaa ka dhaqi markaa waxaa jirtay hees aroos ida loogu talagalay oo aroos kastaba loo qaadi jiro lagu hon jiray aroosada heestaas waxay sheekha maydyaalo shaxi saxaaqo awowo sharnaga haye oo caan bay ahayd sidii caadiga ahayd bay naagihii midkihiina markay halkii ay bilaabeen sheekha maydyaalo shaxi saxaaqo awowo sharnaga haye sidii sidaa u lahaayeen ayay hablo isaaqii naaboodo soo gel midkii sheekh maxaa ka galay sheekh isxaaq namalaynaha oo 20 bilood bas raxo ratimiir blaystayo dushay mareeno magaalada xaafada iyo magaalada waxa jiraysay dix la yiraahdo urays xarwada halkii bay galeen laakiin iska khabar badariya halkii markay soo galeen ku garaaceen gab aroosadii gab waxa dakharka laga dakhray kala dilay ka maxay ka kala baxsaday oo naagihii qaar magaaladii bay orod ku soo galeen burcay dib ugu soo noqdeen qaar orod bay ku galeen urayso qaar maghribkii ayuu mala allah u naxariistay ninka maanta dhuulo cali la oran jiray cumar dhalay cumar dhuulo cali yaasiin buu ahaa isna cumar wuxuu ahaa dhuulo cali yaasiin dhuulo cali baa yimid oo wuxuu arkay aqalkiisii ay dad hor joogaan maghribkii wuu galo naam maxaa ku helay naagtiisii oo dakhran naam maxaa ku helay dee wakaasoo saala nagu laayo aroosadiina waa la dilay maxaa annaka iyo ma jiro oo rag dadkana maxay leeyihiin dee inaan jaar ahayn baan mureed ka soo qaato mureediina waa layga goosto dee iyaguna waxay leeyihiin naagahana waxay leeyihiin mureedii adoo keena maaha dee aqalkiiba tagayn oo ninkii baana dilaya oo keen dee anna way kaasoo waa dhuulaa yidhi naagii ku soo baxdo wuxuu yidhi anaa berri ini siinaya wixii niye iska taga mayd ninkii on maanta annagu mureedii sidiin ma tagayno oo kama tagaysiin halkiibuu ninkii maanta dhuule xaafadii marayo xaafadii oo naagay dakhran xitaa aroosad dakhran tahay oo kano caradiibu dib u soo noqdo miskiid baa jiraya burco dhexdiisa bartankeeda ku yaalla oo iminkana sidiisiiya oo maanta ma garanaysaa cashaa'iga marka la eedaamo inta maanta lala sugayo inta jamaacadku imanayo ee laisla sugayo ayaa qasiide laga qaadi jiray qasiidadaas oo ahayd shalillah waliyullah ya sheekh saxaaq waliyullah oo caadi baa iyadoo laga qaadi jiray raatubo ahayd qasiidadaas dhuulo oo xumbaynayo oo cadhowsan baa miskiidkii soo galo halkiiba fariisto qasiidadii baa la sheegay shalillah waliyullah ya sheekh saxaaq waliyullah dhuulo cadhaysan baa halkii ka hadlo shalillah waliyullah abbaani saxaaq waliyullah waa ninkan abbaanka haya waa loo fiirsaday inuu dhuulo yaala dhuulo maxaa waxaan kugu cambaalay dhuulana in la ixtiraamo oo maanta dee burco maanta sharaf ku laho maanta ma garanaysaa ilaa sheekh bashiir ilaa maanta culummada ilaa maanta dadka tijaarta waxaasoo dhan ay ka dambeeyeen bay ahayd inkastoo ka cadhoodeen damcaynayna haddana laakiin intaakaas ay buule ha u dhawaanin dhuulo maa maxay دولة أرنت صار نقول عادي وما حافظ هذي واي بابادي وما ولا دخرنته ولا دلنته وحنا إنك قدر عقل تستصدح يا هرجو قوله ده بيكين أمو دلينا تاسينا وحيد ما أنت تيلا بعد هالك كده عليه ما أنت مكرني ساي ديلا دي نزل هاي واحد جرتي كن سجال بقول تدبي إياه كنتم كي أيام مقالة هرجيسة barasaabkii joogay waxa la soo hadlay barasaab cadan maxameedeeda magaalada kullu leeyahay barasaab haystay baa la soo hadlay wuxuu yiri war dadkii dhulku xaadiyay baa iga gariifay maanta ma garanaysaa maanta ma isoo diri karaysaa 200 nin oo dhulka ay xaada dad oo soo weydiinay wuxuu tagay barasaabkii baa soo shiriyay aqladii Soomaaliyeed joogay waxaa jirta dadkaas magaaladaas laga doonaya 200 dhulka xaada de meelisi de hay waa ku dalkan baa xaada halkan baa waxa xaada dadka midka hay'ad iyaga ayaan ku keenayna ilaahi laakiin shart nin kale oo midgaanayni lama qori karo war anigu midgaani ma kala jeclay dadkaas doonaya un baa shaqada ninkii doonaya odaydii midgaha loo yeero waxa shaqada la inay haya
نصاب على هالشيء نورته بركي هالك تجاوز كش قيسان شغال إنها يا ونده هالك أرتا شغال إنها يا ما أنت مقرن يسوي حردونه لا بقولون أو واللي دوفينا يا عظم يا تجايا بكل مقرن اللي لا شغال إنك السين يا ده لبضي قضية دي بعد هالك تويدي إلا برعو إلا بربرة إلا هرقيسة إلا لسعانوت إلا بورما إلا سيلع إلا كان يا كالا يا ركب قار رئيسين لها رئيسكي يبي قار كبول يا لها كبوله يبي قار شقي كلا يستوى شقته يسكي يبدو هالكي صورته ولا هرقيسة يبدو maxay raga ku kalifayeen shaqadooda ay waxa ka tagaan waxa ka horeysay 1950kii ayaa magaalada Cadmeed waxa laga qodayay laga sameeyay meel petrolka lagu qaybiyo cafeteria la yiraahdo oo petrolka lagu qaybiyo lagu sifeeyaa laga sameeyay bureeqa meesha la yiraahdo markaas de loo baahday shaqaale Soomaaliland waxa laga qaaday ilaa 200 ilaa 300 oo dhino boy iyo diraawaliin iyo yaani koogad iyo waxaas oo la geeyo de kafir halka la geeyay bureeqa oo ka shaqeystay baad si wanaagsan ilaa waxay labiyo kontonkii baa la qaaday ilaa 6 sanood ka soo shaqeystay oo hargeysa ku soo noqday burco iyo berbero aqal ka dhistay oo maanta hotel ka sameystay maanta ka soo oo de تيو مدح لغو هيو ددكي ayaa la yiri midkii ba maanta la qaadaya kullu la geynaya nin kale lama qorayo midkii waxa uu qaateen in maanta arintii oo kale dhacayso oo Ingiriisku ugu abaal gudayo midgaan la qursado maanta isagu doonayo halkii ba la qoraa dhalinyartii maanta saaqay maanta magaalada ku amal lahaydna mid kasta uu soo galay uu xisaabka gal oo yimaada waranay qoraho kano oo halka jooga odayada qoraya midgaha qaar waxa ka fadhiya isaaqa galki qorayna uu jooga ninkan ahayd markuu soo galo madaxa loo taaga waa maaha kaasi annaka markaas la qaadanay ka bax askari loo yiraahdo dhaafriya meesha kii kala soo galo sidaas la yiraahdo waa isagii waa la qoraa midkii hore waa abi wasa Ingiriisku hadda midkii uu noo yaxanaya abi wasa oo dadkii buuq magaaladii oo midkiina maanta magaranaysa sidii wahayd baa 200 la dhameeyay markii 200 la dhameeyay waxa dhacday in maanta ma garanaysa waxay jireen phone passport waxa la oran jiray 6 bilood socda oo passport yare la oran jiray te wato dubiga kontonkii passport ka irinka haystaan in maanta ka weynaysta uu ka qaalisanayo meel kasta lagu tagayo qalib waxa ka Soomaaliya hadaan ragii baa passport yare loo warsiiyo maalintii dambe oo halkii oo kano waxa loo dalbaday maalintii la dhoofinayay 25 gaariyadii militariga ee maanta Ingiriiska halkii baa la soo safay halkaas aan joogo hebel full inta waxa hoos ortay islaantii oo mid kasta markuu fuulo ay joog yaro muqmada ama joog yaro waxa u dhibaysaa oo de waka aqalkii aduu ku sugaya ama nin noqo de maanta de ama de oo halkaas hay igu daa ana soo dhisay aqalka aniga igu daa oo halkii oo aduu baaburadii baa dhaqaaqay berberaalad markab taxwiij la oran jiro bis iyo mijirkood ay maanta alaabta iyo waxa ku soo rari jiray de maanta markabka uu ka shaqeynayay bartigada berbera taxwiij baa la oranayay inta badan waxa raran jiray imika ma jiray company bis la oranayay iyo company mijirkood la oranayay labadaas ay ahaayeen bas barkabkiiba ragii lagu qaado mukulla la geeyay mukulla markii la geeyay la yiri 3 cisho fasax baa tihiino maanta lacag la siiyo magaaladii ba galan mukulla waxa tagan rag badan oo Soomaali ah maanta ma garanaysa warsageli ha u badnaadaan maanta baa mushtari ku loo daar ku loo maanta ragii la yaabo war xagad ka timaadeen de waxaan ka dhimid Soomaaliya oo maxal shaqaalana siinaya oo ragii waxaan qoydo waryaareen war magaciina hadilina nimeeyo meesha wax la inagu soo wada ma taqaanin maya kaalaya waxa loo geeyay qaar madaxa gidaar kala dhacayo gig tahay raga markaysa ka farays kula hadlay ka madaxa gidaar kala dhacaya ka arintay ku waasheenay sida ku noqdeen ayaa la doonayay ka shaqaysiin oo maxay tahay de inaad maanta ma garanaysaa xaar kurtiin oo inaka keenay waa la xaaray laakiin mukulla baytilmeeye male
أقل كستوى ما أنت هلكي مسؤول لو قسم لها ميلرو مقصنا للسمية وبلدي بياله بلدي اسمه حرك بحسده هبين كي لبيه طبعا كهبين نمو وحي ما تب بابور وين وفستوي كذا بلدي قاس يكون قران بلدي قاس يكون قران ولا بيحبركم بعد بابور قاس أيها لك حياة حتى أنا وحلك يا ميل بنانا ولا سيد الحوضة سيد لو صفا ولا حادية oo markay igdaadana la burburiya oo jooyda lagu guraa markaas bakhaar la keenaa bakhaaradaas ay carabtu ka iibsataa oo beeraha u iibsataan beeraha ku subaano yani beeraha ku baxal leeyna war waa arintaas waxa la inii keenay nimeeyo magaciina adilina adilina meesha iskaga noqdo waarna ma annaka waxa noo keenaysiin annagu ma yaan waxa naqaana oo tawaariq mala maanta iska mabsuud hayo maanta yani kulli maanta ay soo hoday maxaa ku yiraahdaa bureeqa halkii baa maanta saddexdii habeenkii markay dhamaatay hangaar weyn baa loo dhigay sariir oo ay seexdaan habeenkii saddexaad baa 12 habeenimo mid la toosiyay dhinaciisa loo gubtay mid kastaba khamiis madow ayaa loo tooray khamiiska gasho war waxa khamiiska xilliga war gasho hayo laba carabad tusiya khamiiskii bay gashadeen طبعا عربة بس طبعا كحشتو كالي هلك فرصة سوق هذا كون بلدي قبو وبلدي حرب بروح عرب كيف وجهك يجي أبها وسؤال كيف الدجال وببه متبم الدليل هلك قيلة وارجع بحاي و سيري كيف عند بوليس كيف على يمينه وحبيني وقارب حصدين وقارب تكين ولا كلا عرضي وقارب حبين كده يسبح سري وهلك كيف عطوك بيش عرور تبالا رجل خبطي ورقد به سوقرن ما أنت مقرن سبب صباح يوديبان تكسر دوفيه ويرادين وقت مركان كله تقني ماشى صحار أرنت سألنا دوني مركان ديدنا وإن دجال بعد عند دجال كي كنتن واحد لي أسكرتي بليس كي حبض كفر تو كنت وين دتن كنت نوي يعدو أي ماشى أي أنت شري لما تنوي دا وعم شري لما تنقل كلنا والله قبته والله هيا وما أنت دوكا أنا سمرة أو دوكا كدرنا دبيدان دابيو حيميس حتى هبر هيدي حدو قضي هاي حتى إسلام هيدي حتى كوير هيدي حتى كوين هيدو أي صوت ودقاقة هو باي أو ببل ميمتيني الله رئيس كي سراتو إسكا هايستاي الله كبولي سراتو إسكا هايستاي هل كيسيا كا تذكير يا هو بحد متكسبين ما حد دعي الله يقتجاي الله يقتجاي وهرتذكير محاير وهالوصل صعدوا ستيشن بليسك استاذ بس وهالكي كدو فين الكي قاعدين بابرده هالكي بيستاك هو بايو دكا وي تورتورن استاذ بليسكي نوسو عليه ددك يغي نو كديش حداي واتو دبي waa 1900 kontonkii dhankan kale maanta ma garanaysa rag siyaasiyiintii waxay doonayaan maanta dalka inay xoreeyaan oo maanta ingiriiska way dacwad kula jiraan oo maanta ma garanaysa dalka xorriyadna siiyo maanta ma garanaysa naga daayo oo kan oo dagaal baa lagu jira qoladii siyaasiyiintii baa maqashay arrintaas dhacday نقصي وكديا كورهايسا